waxaa ku gaaf wareegaya muuqaallo la moodo dagaal soo socda dowladuhuna waxa ay ku tartamayaan farsamayntiisa iyo ka ganacsigiisa laga bilaabo Maraykanka, Ruushka, Kuuriya, Shiinaha ilaa laga gaaro khaliijka Carabta, Iiraan iyo Turkiga. haddaba maxaad ka taqaanaa sooyaalka tartanka gantaalaha difaaca cirka muxuuse yahay qorshaha dowladaha ku tartamaya وما خريطة المتنافسين حوله hubkii ugu horreeyey ee difaaca cirku waxa uu soo shaacbaxay sannadkii 1870 kadib markii Ruushku uu adeegsaday qoriga ballon cannon si uu u soo rido gantaalaha baarashuudka lagu qaado ee Faransiiska xilligii ay go'doonsanayd magaalada Paris. hubka cusub ee ballon cannon waxa uu dhulka soo dhigay 7 gantaal oo ah kuwa baarashuudka lagu qaado, intii kalena waxa uu ka hor joogsaday inay si xor ah u duulaan. sidaas oo kalena waxa uu soo dedejiyey isdhiibidii Faransiiska sannadkii 1871 soo ridistii koowaad ee diyaarad la soo rido iyada oo la adeegsanayo hub dhulka yaal waxa ku kacay Cuthmaaniyiintii hore xilligii ay dagaalka kula jireen Talyaaniga sannadkii waxa ayna diyaaraddaasi ku soo dhacday dhulka Liibiya markii uu qarxay dagaalkii koowaad ee adduunka. iyada oo la adeegsanaya diyaarado ayay dowladuhu bilaabeen inay ku tartamaan difaacashada bartilmaameedyadooda dhulka, badda iyo cirka weliba si aad u qoto dheer. dowladihii dagaalamayeyna waxa ay gacanta ku dhigeen madaafiicda lidka diyaaradaha oo ah nuucyo kala duwan, kuwaas oo loo yiqiinay AA Gunneries ama AA Gunneries, waxaana lagu jiidi jiray gaarigacan ama kaariyoone iyo fardaha. jihaynta iyo ridista hubkaas waxaa loo adeegsanayay qaab gacanta ah iyada oo ay ka garab shaqaynayaan raadaarada iyo kunjiyado waaweyn oo ilays ku shaqeeya, kuwaasoo habeenkii lagu baarayo hawada sare. si ka duwan gantaalaha baarashuudka lagu qaado diyaaraduhu ma ahayn bartilmaameed sahlan. guushii Jarmalka oo dhan sannadkii 1914 waxa ay isugu soo biyashubatay soo rididda hal diyaarad oo keli ah. ha yeeshee horumar la taaban kara ayaa la gaaray kadib markii dagaalkii sii holcay. xasuuq dhab ah ayaana ka dhacay hawada sare ee Yurub sannadkii 1917 waxa ay taariikhdu diiwaan gelisay soo rididdii Jarmalka ee 1500 oo diyaaradood, halka Faransiiskuna soo riday 500 oo diyaaradood iyada oo Ingiriiskuna uu soo riday ku dhowaad 350 diyaaradood. horumar weyn ayuu sameeyey difaaca cirku intii u dhaxaysay labadii dagaal ee adduunka, waxaana la adeegsaday madfaca Krupp oo Jarmalku sameeyey nuuca 88 mililitir intii lagu jiray dagaalkii sokeeye ee Isbayn. intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunku, Ingiriisku markii ugu horraysay waxa uu ku daray raadaaradiisa nidaam haga rasaasta madaafiicda wax yar ka hor dagaalka. taasina waxa ay keentay inuu awood u yeesho soo rididda diyaaraddii ugu horraysay ee Jabaanka, taas oo ku dul dhacday Singapore iyada oo la adeegsaday gantaal nuuciisu yahay 4.5 inji. iyada oo haddaba dagaalkii sii fiday siina kululaaday ayaa waxaa soo baxay nuucyo badan oo hub ah oo la hindisay, kuwaas oo u badan hubka lidka diyaaradaha sida qoriga darandooriga u dhaca ee Jarmalka ee Fliegerfaust oo garbaha laga rido, madaafiicda Bofors iyo madaafiicda nuuca M ama shilkaha ee Maraykanka. iyada oo haddaba la sameeyey horumar weyn, haddana natiijooyinkii la gaaray ma ahayn kuwo lagu qanco. difaacyadii dhulka ayaa la jebiyey iyada oo la adeegsanayo dhinaca cirka 90%. dhammaan duqaymihii dagaalka ee dhinaca cirku waxa ay xaqiijiyeen bartilmaameedyadoodii ka soo guuridda haleelidda bartilmaameedka iyada oo la isticmaalayo 30,000 oo xabbadood iyo u soo guurinta 4,000 oo xabbadood. wax badan ma aanay beddelin intii lagu jiray dagaalkii qaboobaa ee u dhexeeya Midowgii Soofiyeed iyo Maraykanka. hannaanka difaaca cirku waxa uu qayb ka ahaa tartanka ishubaynta iyo dagaallada wakaaladda ee u dhexeeya labada dowladood ee caalamiga ah si looga hortago hub cusub oo ay ka mid yihiin gantaalaha balastiga oo awooda inay xambaaraan madaxyo nukliyeer ah sida gantaalka Somyork oo uu sameeyey Midowgii Soofiyeed, kaas oo ay riddadiisa ama fogaanta uu wax ka dili karo ay gaaraysay 9330 kilomitir, iyo gantaalka Atlas oo ay riddadiisu gaaraysay 18,000 kilomitir islamarkaana uu sameeyey Maraykanku. hannaankii difaaca Ruushka ee ugu caansanaa xilligaas waxaa ka mid ahaa gantaalka Sa-75 Davina, kaas oo awooday inuu dhulka soo dhigo diyaaradda Lockheed U-2 ama Dragon Lady ee Maraykanka intii ay taaganayd dhibaatadii Kuuba sannadkii 1962. waxaa kale oo jiray hannaanka difaaca Sam oo aad u kala duwan. waxaa ka mid ahaa nuuca garbaha lagu qaato oo loo yaqaano Sam 7
sam waxa uu ka ciyaaray kaalin muhiim ah isaga oo ka dhinac dagaalamaya madfaca shilkaha soo rididdii diyaaradaha Maraykanka sida ba-52 intii uu socday dagaalkii Vietnam sanadkii 1955 ilaa sanadkii 1975 tiro badan oo ka mid ah Samna waxaa iibsaday Suuriya iyo Masar kadib khasaaradii la yaabka lahayd ee dagaalkii 6 maalin ee ay la galeen Israa'iil sanadkii 1967 maqnaanshaha hanaanka difaaca cirka oo wax ku ool ah ayaa sabab weyn u ahaa khasaarihii Masar iyo Suuriya ee gaaray inta badan ciidankoodii cirka ee xilligaas difaacan cirka ayaa kaalin weyn ka qaatay isbeddel ku dhacay miisaanka awoodda labadaas dawladood iyo Israa'iil intii lagu jiray dagaalkii feejignaanta sanadkii 1969 ilaa 1970 iyo dagaalkii Oktoobar ee qarnigii tegey marka la eego hanaanka difaaca cirka ee ugu caansanaa Maraykanka waxaa ka mid ahaa hanaanka difaaca gantaalaha qaranka ee Nexus hanaanka ilaal oo ujeeddadiisu tahay inuu ka hortago gantaal walba oo balastig ah oo sida hub nukliyeer ah oo ay suurtagal tahay inuu ka yimaado dhinaca midowgii Soofiyeed iyo hanaanka difaaca Avenger intaasna waxa dheeraa gantaalaha Stinger oo qof keli ah uu adeegsan karo taas oo suuro gashay sanadkii 1981 waxa ayna gantaalahaasi ahaayeen sababta xabaalihii diyaaradihii midowgii Soofiyeed maalmihii uu socday wixii loo yiqiin jihaadka Afghanistan 80-yadii qarnigii hore iyada oo haddaba la tixgelinayo waxa u dhaxeeya wixii tagay ee fog iyo faahfaahinta maanta waxaa sii badanaya magacyada hubka difaaca cirka nuucyadiisa hindisidiisa iyo adeegsigiisa dhulka badda iyo cirka iyada oo hubkaas lagu farsamaynayo waddamo badan oo ka mid ah adduunka ayaa haddana qaarkiis la kala xulan karaa waxaana lagu magacaabi karaa difaacyada ugu halista badan tusaale ahaan Hindiya oo kale waxa ay haysataa labada difaac ee Baad iyo Aad kuwaas oo uga hortagi kara gantaalaha fogaan dhan 30 ilaa 80 kiiloomitir oo dhinaca cirka ah Shiinaha oo kale waxa uu haystaa hanaanka difaaca Hong Ga-9 kaas oo awooda inuu dhulka soo dhigo 9 nuuc oo ka mid ah diyaaradaha iyo gantaalaha taas beddelkeeda Israa'iil waxa ay farsamaynaysaa hanaanka difaaca dahaarka birta ah kaas oo u gaar ah ka hortagidda gantaalaha ay riddadoodu tahay 4 ilaa 70 kiiloomitir iyo shucaaca isna birta ah oo adeegsanaya fallaaraha laysarka si loo soo rido bartilmaameedyada riddadoodu tahay 70 ilaa 300 kiiloomitir sidaas oo kale Israa'iil waxa ay haysataa hanaanka difaaca ee Sahmi 3 oo awooda inuu ka hortago gantaalaha meel ka baxsan hawada Israa'iil waxaa jira hanaan difaac oo ay wada leeyihiin Talyaaniga iyo Faransiisku waa hanaanka difaaca Aster waxa uu awoodaa inuu ka soo rido bartilmaameedka fogaan dhan 100 kiiloomitir ha yeeshee horyaalnimada Maraykanka iyo Raashiya ayaa weli sii ah mid fariid ah hanaanada difaaca Patriot iyo Thad ayaa ah cududda difaaca ugu xoogga badan ee Maraykanka hanaanka difaaca Patriot waxa uu awoodaa inuu uga hortago dhammaan noocyada diyaaradaha iyo gantaalaha fogaan dhan 80 kiiloomitir waxa uuna u shaqeeyaa si awtomaatig ah iyada oo aan loo baahnayn in bini'aadamku lug yeesho ama ka shaqeeyo waxaana loo iibgeeyey oo laga iibiyey dhowr waddan oo isbahaysi kula jira Maraykanka sida dawladaha Yurub Khaliijka Carabta Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed marka la eego hanaanka difaaca Maraykanka ee Thad oo aad halis u ah waxa uu xadayn karaa bartilmaameedyada gudaha iyo dibadda hawada fogaan gaaraysa 200 kiiloomitir dawladda keli ah ee heshay ama Maraykanku siiyey waa Imaaraadka Carabta Maraykanku waxa uu haystaa hanaan difaac oo argagax badan kaas oo isaga u gaar ah loona yaqaano GMD ama Ground Based Mid-Course Defense kaas oo loogu talagalay ka hortagga gantaalaha balastiga ah oo ay suurtagal tahay inay ridaan dawladaha Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan waxa kale oo jira hanaanka difaaca Aegis oo u taagan difaaca gantaalaha badda kaas oo ku xiran maraakiibta iyo guujisyada dagaalka Maraykanku waxa uu haystaa 33 markab oo ku gaashaaman difaacaas Ruushku waxa uu haystaa 2 hanaan oo difaac oo caan ah waa 300 oo qadiim ah balse u dhigma hanaanka difaaca Patriot ee Maraykanka waxa loo badinayaa inuu awood u leeyahay soo ridista gantaalaha Tomahawk ee Maraykanka waxa kale oo uu haystaa hanaanka difaaca 400 oo awooda inuu bartilmaameedyada ka garaaco fogaan dhan 200 ilaa 400 kiiloomitir waxaana Ruushku diyaarinayaa hanaanka difaaca 500 kaas oo la sheegayo inuu bartilmaameedyada ka duqayn doono fogaan dhan 600 oo kiiloomitir si haddaba lagugu sii kordhiyo argagaxa bal arag hanaanka difaaca ee 235 nodal ee Ruushka kaas oo warbixinada warbaahinta Ruushku ay sheegayso inuu diyaar u yahay inuu ka duqeeyo dayax-gacmeedyada meel ka baxsan hawada Ruushka waqtigu waa socdaa farsamaduna waa sii hormaraysaa
iyada oo ay koobmeen dagaaladii tooska ahaa ee u dhexeeya dawladaha waxa ayna u muuqataa in tartanka difaaca hawada ee maanta uu noqday mid ka badan kana ballaaran aalad ama qalab garaad ama caqli leh oo ku dul wareega waddanka waxa uu isu rogay ganacsi ribix badan oo ka faa'iidaystay walaahowga iyo cabsida xukuumadaha sheekaduna waxa ay ka tagtay tartan ishubayn ah iyada oo u dallacday tartan ganacsi oo ay hoggaaminayaan labada dawladood ee ugu waaweyn adduunka meel walba oo aad ka tagta qaaradaha adduunka waxaad arki doontaa hannaan difaac oo ruush ah ama hannaan difaac oo maraykan ah ama labada difaac oo wada jira oo ay hal dawladi wada haysato sida sacuudiga oo saxiixay iibsiga hannaanka difaaca SA-400 ee ruushka sannadkii 2017 iiraan iyo shiinaha waxa ay iibsanayaan hannaanka difaaca SA-300 ee ruushka waxa ayna quudarraynayaan iibsiga SA-400 iyada oo indiyana ay ka iibsanaysa ruushka iyo israa'iil si ay u wajahdo bakistaan jabaan iyo kuuriyada koofureed waxay ka iibsanayaan maraykanka iyaga oo ka cabsanaya kuuriyada waqooyi difaacyadani waxa ay ahaanayaan hubka gabbaad laga cabsado oo u kaydsan adeegsi kooban ha yeeshee hubkani ma ku jiraa gacan ammaan ah bal ka warran haddii uu galo gacanta kooxo hubaysan oo xag jir ah dhammaanna waxaa la xasuustaa dhacdadii diyaaraddii maleeshiya oo lagu soo riday gantaal iyada oo dul maraysa yukrain ayna ku dhinteen 280 qof oo la socday sannadkii 2014 bal ka warran haddii hubkani gefo bartilmaameedkiisa dhabta ah sabab la xidhiirta dhinaca barnaamijyaynta ama burcad u dhacdo habka kombiyuutarka laga maamulo kaba sii mudane ka warran haddii uu holco dagaal caalami ah oo cusub iyada oo ay taal tirada intaas la eg oo ah hub waxlaaya xaaladdan oo kale sheekada ku saabsan soo rididdii gantaalkii baarashuudka ee faransiiska sannadkii 1870kii waxa ay noqon doontaa oo keliya hamaad iyo qosol holac madow ayaa haleeli doona wax walba oo samada ku duula ama ku dabaasha hawada dhow waxaa cilladoobi doona xarumaha telefishinka waxaa la joogsan doona dhaqdhaqaaqa badmaaxa caalamiga ah iyo 100,000 oo duulimaad oo maalin walba ka kacda daafaha adduunka haddaba xaggee u socdaan awoodaha waaweyn ee farsamada difaacyada cirku muxuuse yahay mustaqbalka uu sugaya adduunku iyada oo dawladuhu ku tartamayaan gacan ku hayntiisa